Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Wuxuu ku saabsan yahay qisadii Nelson Mandela iyo waardiyihii xabsiga wixii dhex maray. Wuxuu yahay Nelson Mandela markaa noqday madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa maalin ka codsaday qaar ka mid ah waardiyaasheeda ama ilaaladeyda in ay magaalada igula soo dhexlugeeyaan. Xabaar kadib ayaanu galnay maqaayad waana fadhiisanay, qof walbana wuxuu rabay ayuu dalbaday. Intii aan sugaynay cuntadii aan dalbanay ayaa waxa indhahaygu ku dhaceen qof fadhiyay kasoo horjeedkayga. Dabcan isagana wuxuu sugayay dalabkiisa. Mid ka mid ah ilaalayaashayda ayaan ku yidhi kac oo ninkaas ka soo codso inuu miiskan la soo fadhiisto si aan wax u wada cunno. Ninkii wuu yimid waana uu soo fadhiisiyay dhinacayga, waxaana bilownay in aan cuntadii isla cunno. Dhibco dhidid waaweyn ayaa dhafoorkiisa kasoo da'ayay, gacantiisuna way jaraynaysay oo maysan awoodin in ay cuntada afka gaarsiiso. Kadib markii aan cuntadii dhammaysanay oo ninkii tegay ayuu waardiyahayga qaaska ahaa igu yidhi ninkaasi nala fadhiyay wuxuu ahaa mid xanuunsanaya, gacmihiisuna way jaraynayeen, mana awoodin si fiican inay wax u cunaan. Nelson Mandela waardiyihii wuxuu ugu jawaabay, ninkaas wuxuu ahaa waardiyihii igu hayay qolkii aan ku xirnaa. Inta badan waxaa dhici jirtay marka la soo ciqaabo waan qaylin jiray aniga oo ka codsanaya xoogaa biyaa in la siiyo. Ninkani ayaa ii soo geli jiray madaxa ayuuna iga kaadin jiray mar walba. Sidaas daraaddeed ayuu la jaraynayay cabsi uu iga qabo darteed in aan ka aarsado oo xabsiga dhigo. Laakiin akhlaaqdaydu sidaas ma ahan, maxaa yeelay caqliyada ku dhisan argudashada ma dhista dowlad, halka caqliyada ku dhisan dulqaadka iyo is-saamixidda ay dhisto ummado. muuqaalkan intaas ayuu ku egyahay. muuqaalka sidoo kulmi doona sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.